walaxaan gaalnimo ahayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay cadaabta in loogu waarayo waxaa ka jira qatl yani qof muslima in la dilo dulmi loo dilo waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannamu khaalidan fiiha khuluudka naarta qofka ilaahay beeniyey bisa iska leh laakiin qofka qof muslima dhiiggiisa banaysta maxaa la yidhi naartu waa ku waara intaas looguma simin walacanahu allahu calayh ilahay haddana waa lacnaday waacadda lahu cadaaban cadiiman cadaab oo culus oo weyna ilah waa u diyaariyey marka naftaas qaaliga ah oo ilaahay agtiisa saas ugu weyn annaka waa iska banaysan waxaan u dilnaa dadka reer hebel waay waxaa uga helaya xataa ma marka meesha lagu joojihaayo oo dhiigga muslimka lagu joojihaayo qofku inuu ka qayb qaatana goodiskan oo cadaabka iyo lacnada waxa ka soo horjeeda oo ah ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisa aa laga helaya in qofku uu musaalaxa ka qayb qaato oo ummad isu soo dhoweeyo oo dhiig muslim badbaadiyo ilaahay agtiisa waa ku weynta ilaahay subxaanahu wa tacaala baarinimadiisa waxaa ka mid ah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican dembiyada dhammaan ilaahay waa dhaafaa laakiin maxaa lagaa rabaa inaad toobad keento towbadana waxaa shardi ah inay nasuux tahay oo qalbiga ay ka timiday oo shallaay ou la socdo marka waa mahadsan tihiin akhyaarta wax dhaqda iyadu wax ma dish waxay dhaqdaa nabaday qaado ayadaa la rabaa inay gadaal u qaado waa laga yaabaa in lagu dhibo laakiin waxa aan laga shallaaynin adduunyo iyo aakhiro nabad la qaado waay nabad la qaaday addunya aakhira ma laga shallaayayo marka waa mahadsan tihiin waxaan idinkaga mahad celinaynaa inaad aqbasheen talada laydin soo jeediyey go-aanka laydin soo jeediyey